ninka maxaa isku hayay ninka halkayga waay waa dhiigayga alxamdulillah bas dawladda xaq haday jiraan masaakiin manaan nahay culumaan nahay dad ma dagaalno dad man maagno hore ma haysano awood shaati dawladeed ayaa lagu dilay oo waliba manishiibiya ah manisba halkan iga dambaysa waxa daqiiqada ka hor lagu diray Abuukar Nuuraani oo ku magac dheeraa Abrimo wuxuu ahaa nin oday ah oo wax awlaad aan u joogin isla markaana dhagaha ka culus ama dadka maqal kala goob ganacsi ayuu ku leeyahay halkan waxa uu yimid nin manishiibiya ah oo ciidamadan dawladda hoose ee lacagaha aruuriya waxayna ku murmeen sida ay ehelada iyo qaar ka mid ah dadka goobta joogay ay noo sheegeen 10,000 oo shilin Soomaali ah ninkan ayaa sheegay in maanta wax badan aan laga gadan wuxuu ka codsaday ninkii manishiibiyada inuu 5,000 siinayo laakiin ninkii manishiibiyada arintaas waa u cuntami weysay muran dhaxmaray ayayna ka dhalatay rasaas uu madaxa uga dhuftay ilaahay u naxariisto nin wixiisa iska gadanaa xoog ku nool ah 5,000 ala daraadiisa u dilay war 5,000 isii war xasuur nina wirag 5,000 ana ku siinaa ninkan waa mashquulsan yahay war ma adaysaa kuru ugamo halkaas uu dhiftay adii ninkii xoolihiis gadanaya adii baliyada ilaa wakeen war waxaan waa lagu sinina biir waa ku sii iska dhaaf maya waqti ajale waqtiga ya dhamaatay waxa ana xoog leh ana awood nin qori la aad maxaad ka tartay anaga heer xamaranaya qurba qaadano waana la dil wax ka sano lagu sameeyay Allah jooga sidaas waxaan ku jiganaa kuliibaan oo ayna wali saas ay tahay ninka cadaalada noorna ninka dilay asaga ina wada saduu waxa isku ahaydeen ninka dhintay Allah u naxariisto ninka dhintay anaga waxa inay ilmaadeer ahna kan markuu xaafada soo galiyo markiiba yiraahdo 5,000 dadka wax ku carbeynaya qori dadka shacabka ayaa ogol inay dawladooda lacag siiyaan laakiin qaabka looga qaadaya ayaa wali waxa uu ka taagan yahay muran aad u weyn waxaana inta badan dhacday in qof muwaadin Soomaaliyeed 2,000 ilaa 10,000 oo shilin Soomaali wax u dhaxeeya loo dilo oo dadkiisii iyo ehladii uu u xamaalayay sidaas uu uga dhaxbaxo